waxaase dardar leh u soconaya wareegga 18aad ee barnaamijka isxilqaan oo ah dalkaaga dib u dhiso oo ay ka qayb qaadanayaan shaqaalaha wasaaradaha dawladda Soomaaliya kaasi oo dib u dhis iyo dayactir looga sameeyo xarumo muhiim ah waxa shaqaalaha rayidka ee madaxtooyada qaranka ay ugu qayb qaateen wareegga 18aad ee howlaha isxilqaan ee lagu dhisayo guriga hooyooyinka ee loogu magac daray guriga Maama Baxsan iyo xarunta maktabadda qaranka oo ay ka socoto howlo dib u dhis iyo dayactir qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka ee madaxtooyada qaranka ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijka isxilqaan iyo sida ay ugu qayb qaadanayaan waxyaha kala duwan madaxtooyada qaranka iyo shaqaalaha guud ee Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxa la yahay horumar iyo shaqo wanaagsan waxaan ku faraxsanahay maalinkii 18aad inaan isxilqaan u soo diyaar garownay aad iyo aad baan ugu qaliyeenna dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo cilaamiyay isxilqaan kulisa dalkaaga waa uga mahadcelinaynaa horaan u soconaynaa kow ma aha laba ma ahan insha Allah bilkariim meel walba tagayna gobol iyo tuulo iyo meel walba Soomaaliya degan tahay waxaan rabnaa isxilqaan ku dhiso ياسين عيدين كشغل حديث مدعوينها جمهورية الفدرالية الصومالية وحنوصل بعد مساك إسحلقان مرة البوم وقتنا عن كلا إن إسحلقان ما عندي أرنا إن وقت كان اسمه وفل بوم مواطن إنه حل غير ربعين وقت كيسبس وقت كان مركب ورد عندنا إنه يكون بدري حتى لو حل ربعين عندنا كيسبس gaasimaha adeega guud ee madaxtooyada qaranka injineer Mukhtaar Cabdirasaaq Yuusuf ayaa ku booriyay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka ee dawladda inay si laban howlaha isxilqaan ee lagu dhisayo dalka waxa sharaf weyn oo ah guul iyo gobonimo weyn oo ah maanta inaan nimaano maktabadii qaranka annagoo gudanayna waajibaadka qaran ee nasaaran isla markaasna oofinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka uu ku bixiyay in la dhiso amarkii madaxweynaha oo ahaa in la dhiso goobaha danta guud ee muhiimka ah ee ku burburay dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay laga soo bilaabo 1992 ilaa iyo intaan ka soo gaarinay burburkaas oo maanta aan soo gaarnay waqti dawladnimadeena ay soo kacday aan u istaagnay inaan dib u dhisno xarumihiina kaga burburay oo waqtigaasna lagu dhisay iska wax u qabso ama lagu dhisay inay shaqaalaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay geliyeen xoogooda awoodooda iyo dhaqaalahooda intaba iyagoo adeegsanaya dawladooda tii ayaa inoo bilaabatay annagoo fulinayna amarkaasna dhammaan shaqaalaha dawladda Soomaaliya gaar ahaan shaqaalaha madaxtooyada maanta annagu aan ka soconno waxaan u hoggaansanay amarkaas barnaamijka isxilqaan ayaa waxa horay loogu soo dhisay xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka maktabadda qaranka madxafka qaranka iyo xarumo kale oo muhiim ah ayadoo bulshada Soomaaliyeed diyaar ay ugu yihiin sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho